asalaamu calaykum waan ku salaamay daawada meel walbo aad joogtid kusoo dhawow barnaamijkeennii taxanaha ahaa qaybtiisa xigta waxaan filayaa inaad qaybaha hore aad ku ogaateen macluumaadyo badan oo ku aadan qorshaha iyo dhagaraha hay-adaha muusaad ay sameeyaan marka ay doonayaan inay howlgalle ay ka sameeyaan waddamada bariga dhexe buugga sheekadaani shulaamid koohin ama lo'liyi muusaad waxaa qoray xaatim quuri waxaana tarjumay saaxiibkay cabdiraxmaan xasan anteeno qaybtii hore waxay noo joogtay markii aan maari ay gurigeeda ay ku ballamaysay albeer qaybtaanna waxaan ku eegi doonaa shulaamid oo bilowday howlaheedii sirta ahaa iyo la shaqaynta jaajuusiinta gurigii uu deganaa george mulquu waxa uu isu bedelay goob ama xarun kooxda shabakadda ah ee uu hogaaminayo george taasi oo qayb ka noqotay shulaamid koohin ay isugu yimaadaan sidoo kale shuula koohin waxay ogaatay dhammaan sirta kooxda mas-uulka ka ahayd tahriibinta kuwaas oo laga tahriibinayo dhulka lubnaan lana geenayo falastiin waxaa iyada shaqadeeda ay noqotay qorista dhambaalada iyo tarjumaadooda sidoo kale waxaa mas-uul looga dhigay isku xiriirinta jaajuusiinta wakaaladda ay ku lahayd magaalada bayruud waxaa intaasi usii dheeraa inay la falgasho qaar ka mid a siyaasiyiinta ugu madaxa fiiqan magaalada bayruud si ay ugu qanciso qadiyadooda ku aadan falastiin quruxleydii deganeed xaafadda waadii abujamiil waxaa durbasi firfircooni ah looga dheehan kara u bilowday howlihii loo igmaday ilaa heer ay gaartay inay georgi xitaa uu ka maarmi waayo sidoo kalena uu kala tashto dhammaan howlihiisa iyo guud ahaan mowduucyada wakaaladda ee usoo xil saartay waxaana ay shuula koohin ay ogaatay in ninka lagu magacaabo maxamed saciid al cabdullah oo ay isku barteen guriga georgi inuu yahay qofka mas-uulka ka ah tahriibinta yuhuudda lubnaan oo loo tahriibinayo gudaha dhulka falastiiniyiinta sidoo kale waxay ogaatay inuu awoodda u leeyahay inuu gudaha israa'iil u galo saacadda uu doono isagoo xiriir la lahaa dhowr saraakiil oo ka tirsan wakaaladda sirdoonka yahuudda ee muusaad sidoo kale waxay ogaatay in maxamed saciid muddadii uu la shaqaynaya georgi mulquu inuu dhowr jeer safar uu ku tegay dhulka israa'iil ay ka haysato falastiiniyiinta sidoo kalena waxay dareentay in maxamed saciid uu isku dayayo in iyada uu u dhowaado quruxdeedana uu ammaano sidaasi aageed shuula koohin oo arrintaani si fiican u taqaana ayaa dhankeeda iyadana ay usii dhoolla caddaysay si ay u soo dhowaysato taas oo sabab u noqotay in maxamed saciid uu jacayl weyn uu u qaado shuula koohin balse markii hore jacaylka waxuu ahaa hal dhinac oo keliya oo xaggiisa ayuu ka socday waayo shuula koohin waxay wakhtigaasi uu isku dayayay inuu usoo dhowaado ay ku mashquulsaneed howlaheedii shaqo oo xilligaasi ay aad ugu xil saarnaayeen oo xilligaasi aad u xiisaynaysa maankeeda oo dhanna halkaas ayuu jiray waxay u haysatay maxamed saciid inuu xubin uu ka yahay shabakadda uu muulqu uu maamulo sidaasi aageedna aysan jirin dan ku qasbaysa inay isagay u dhowaato islamarkaana kalsooni ay ka hesho maadaama uu yahay shaqaale howshiisii qabsanaya lacagtiisana qaato waa siday aaminsan tahaye hase yeeshee maxamed waxaa ka go'nay sidii uu u hanan lahaa qalbiga shuula koohin isagoo mar kastaa uu eega indhaheeda quruxda badan qalbigiisa ay ku siyaadi jireen jacaylka uu u qabo iyo sidoo kale hilowga uu doonayo inuu mar un uu hubsado in isaga maankeedii uu xaday waxyaabaha xiisaha uu qaba shuula koohin ku siyaadiyey maxamed saciid al cabdullah waxaa ka mid ahaa inuu daawan jiray iyada oo saacado badan taleefon ku sheekaysanayso islamarkaana la haasaawaysa dhallinyaro kale weliba ballan la dhiganaysa sidoo kalena wuxuu arki jiray mararka qaar iyada oo xaalad caadifad ka buuxda ku sugan gaar ahaana markii ay wakhtiga ay la qaadanayso martida yuhuudda ee georgia u martinaysay markaana aan eegno howlgalkii halista badnaa maalin maalmaha ka mida georgi mulquu ayaa shulaamid koohin isaga oo la fadhiya xafiiskiisii waxa uu kala hadlayey howlgal halis badan waxaana uu sheegay inuu la heshiiya mid ka mid a dhallinyarada nafuudda ah iyo sidoo kale awoodda ku leh magaalada bayruud isagoo kula heshiiyey tahriibinta tiro badan oo yuhuudda lubnaan ka tirsan oo loo tahriibinayo gudaha dhulka falastiiniyiinta iyada oo la marsiinaya dhanka badda waxaa kaloo uu sheegay wiilkaani dhallinyarada ah ee uu kiraystay inuu madax uu ka yahay koox maafiya ah kuwaasi oo kiraystay doomo badda ka gudbiyay yuhuudda isagoo intaasi usii raaciyay in howlgalkaani uu yahay kii ugu weynaa uguna halista badnaa muddada xilka uu hayay shuula koohin waxay fahantay in georgia uu ka doonayo inay la xiriirto shaqaale lubnaanaysa kuwaasi oo dhowaan jaga sare loo magacaabo howshiisana ay tahay in dhanka ammaanka iyo ilaalinta u qaabilsanaado si aysan mashaakil aysan ula kulmin hadhow islamarkaana xabsiga loogu taxaabin georgia wuxuu sidoo kale u sheegay in shaqaalahaasi oo ahaa sargaal sare inuu yahay dumar raac dhanka dumarka aad ugu jilicsan lagana doonayo inay ninkaasi qalbigiisa ay hanato islamarkaana awoodda u yeelato inay sidii ay doontay u maamuli karto
Shula Cohen ayaa George ugu baaqday inuu isdejiyo hawsha sargaalkaasina iyada uu u daayo kaliyana ay ka doonaysay inuu siiyo ciwaankiisa, lambarka taleefankiisa iyo goobaha uu badan yahay, kadibna uu ka warsigo 48 saacadood si ay hawshaasi u fuliso hab nidaamsan ay ula soo dulmeerto dhammaan danta iyo ujeedada uu leeyahay sargaalka. Shulaamad waxaa la siiyay dhammaan wixii ay dalbatay, waxay ogaatay ciwaanka ninka, nambarkiisa iyo goobtii uu badnaa, waxaana ay bilowday inay isu diyaarisay la kulankiisa iyo baadigoobkiisa. maalintii xigtay galabteedii Shula Cohen ayaa isku diyaarisay si heer sare ah iyadoo isku taagtay labis ilqabad leh isla markaana soo jiidasho leh sidii caadada u ahayd, waxaana ujeedada oo ay ahayd inay ku soo jiidato ruux kasta oo ka hor yimaada. Shula waxay tagtay goob dumarka isku qarxiyaan iyadoo halkaasi wajigii iyo tamihii ku hagaajisay, kadibna waxay wacday gabar saaxiibadeed ahayd oo la oran jiray Sarina, waa gabar Yahuudiyad ahayd misna qurux badan, kadibna waxay isku raaceen kalaabkii uu ku caweyn jiray sargaalka shaqaalaha ahaa. markaas ayay raadis ay galeen, waxaana hal mar ay soo jiiteen dhammaan indhihii kalaabka ku sugnaa, waxaana ragga ay soo jiiteen ka mid ahaa sargaalka shaqaalaha dowladeed ah oo sidii caadada u ahaydba kalaabka isaga caweynayay. Shula Cohen iyo saaxiibtee Sarina waxay fariisteen kursiga uu fadhiyo sargaalka mid ka soo horjeeda, halkaas oo indhahooda isqaban karaan si fiicanna isku arki karayeen. sargaalku wuxuu ahaa ruux aanan indhaha ka qaadan Shula Cohen, iyadoo sidoo kalena Shula Cohen marba ay jaleecaysa dhanka sargaalka, markii qaarna ay u dhoola cadeynaysay sidii inay u yeerayso oo kale, misna ay leedahay kaalay adiga aan ku sugayaaye. arrintaas waxay ku dhiirigelisay sargaalkii inuu u yeero kabalyeeri goobta marayay, kana dalbado in Shula Cohen iyo saaxiibteed uu ugu yeero miiskiisa. Shula Cohen markiiba waa ay aqbashay dalabkii kabalyeeriga, waxaana iyada iyo saaxiibteed ay u boqoleen dhankii sargaalka oo dhoola cadeen ku soo dhaweynayay, isaga oo fadhiga uga kacay dabadeedna isbarasho la galay. sargaalka waxaa goobta la fadhiyay nin ay saaxiibo ahaayeen isla markaana goobta kula caweyn jiray, waana sababta ay Shulaamid Cohen kaligeed aysan u imaanin, horena ay u soo wadatay saaxiibteed Sarina si inta sargaalkaasi u soo jiidanaysa dhankeeda saaxiibteed ay u mashquuliso ruuxa kale. waxaana Shula Cohen ka go'nayd in sargaalkaani howlgalka muhiimka ah ay si degdeg ay ku soo xirogelisay ilaa isaga oo dhan ah uu iyada isku dhiibo. markii Shula Cohen iyo saaxiibteed ay fariisteen goobta ayaa sargaalkii isaga oo dhoola cadeynaya dhankii Shula soo eegay, wejigiisii farxad dheeraada ay ka muuqato, ilaa waa nin la fadhiya 2 gabdhood kuwaas oo kuwa ugu quruxda badan magaalada Beirut. xilli Sarina ay ahayd gabar dhankeeda qurux badan, balse waxaa quruxdooda ay ku darsatay ilqabad soo jiidasho leh iyada oo lahayd dhumuc kasta oo haweeni ragga uu ku raaco. markaas ayaa sargaalkii 2dii gabdhood waxa uu ku yiri, maxaad cabaysaan? Shula oo indhaha la raacaysa sargaalka ayaa si hoose uga jawaabtay oo waxay sheegtay in ay cabayaan wax walba oo isaga uu u dalbo. waxaa kaloo ay ku celisay su'aal ahayd, adiga maxaad cabaysaa? markaas ayaa sargaalkii ugu jawaabay isaga oo isku dayay inuu jawiga ka dhigo mid romantic ah, waxaan cabaynaa whisky ama qamri, mise waxaad ka doorbidaysaa shaambaynka ayuu yiri, mise cabitaan kale. kadibna sargaalkii ayuu meelcsaday dhanka ninka saaxiibkii ahaa oo ay isla socdeen, isaga oo ku yiri, waxaan iloobay inaan idin baro saaxiibkay oo lagu magacaabo Dr. Ghazi, waa saaxiibkay aan habeenkii isla caweyno. markaas ayaa Shulaamid Cohen sargaalkii waxa ay u sheegtay in looga baahan yahay maadaama ay aqbaleen codsigeedii iyo kulankoodii ugu horreeyay, waxay sheegtay in loo baahan yahay inay si gaar ah u wada fariistaan. sargaalkii ayaa isaga oo aan waxba ka sii fikirinba wuxuu yiri, soo dhawaada, habeenkii ayaan halkan ku wada caweynaa. Shula Cohen ayaa waxay tiri, caajis ayaan xaafadda ku dareemay, sidaas daraadeed ayaa aniga iyo saaxiibtii halkan aan u nimid inaan adiga aan kula kulanaana sharaf ayay inoo ahayd. sargaalkii oo markaasi hadlaya ayaa ku jawaabay, tan aniga ayaa nasiib ku leh. kadib kabalyeeriga ayaa dalabkoodii u keenay, waxaanay afartoodii ay gudagaleen inay cabaan waxyaabihii ay dalbadeen, iyaga oo sheeka iyo baashaal ay u dheertahay qaatay. waxyar kadibna waxaa Shula Cohen ay bilowday inay doorkeedii halkaan ay u timid ay matasho, waxaana ay gudagashay inay la farac ciyaarta sargaalka Lubnaaneyska ahayd, iyada oo danta iyo ujeedada ay ka leedahay ay tahay inay isaga gabi ahaanba bedesho. Shula Cohen waxay habkaani ugu talagashay si uusan marnaba uusan uga shakinin sargaalka uuna u dareemin in ay tahay gabar ka doonaysa ujeedo kale, oo waxa ay gelisay sargaalkaasi mawjad kale oo aan muhiim u ahayn isaga.
saacaddu waxay tilmaamaysaa 10:30 ama 4 saac iyo bar oo habeennimo. markaas ayaa dhammaantood waxay bilaabeen inay dareemaan wareer iyo waxyaabaha la midka ah iyadoo qamrigii jirkoodii uu galay caqligoodiina uu sarqaamay. inkastoo Shula Cohen aysan qamriga iska badanin taxadar badanna ay ku jirtay si caqligeeda uusan uga tagin, waxa ay matalaysay sidii iyadana inay sarqaantay oo qof sarqaana ayay iska dhigtay maadaama ay doonayso inay macluumaadyo badan ay hesho. Shula Cohen markii ay aragtay in sargaalku uu sarqaamay ayay guda gashay inay dareenkiisii ay badasho iyada oo marba dhinac ka eegaysay. sidoo kalena waxay dhegta si hoose ugu sheegaysay erayo sii kicinaya dareenkiisa. sargaalka 50 sano jirka ah waxa uu gaaray heer uu iscelin waayo. markaas ayay waxa ay bilowday inay dalbato inay si wada jir ah ay gooni ugu qaataan waqti. markii sargaalkii Shula Cohen iyo saaxiibteed ay ka dalbadeen inay waqti gaar ah ay wada qaataan, ayaa sargaalkii Shula Cohen waxay weydiisay, xagee doonaysaa inaad inoo kaxaysa, ma guri kuu qaas ayaa jira? sargaalkii oo dhiiranaantii Shula Cohen la yaaban lana dhacsan ayaa wuxuu yidhi magaalada Beirut oo dhan caawa cagtaada ayay hoos taallaa, goobta aad rabto ayaana kuu kaxaynayaa. ujeeddada Shula Cohen waxay ahayd inay gaari ula baxdo si ay macluumaad badan kaga hesho. waxaan kaa rabaa inaad ii caddayso inaad i jeceshahay oo hadalkaadu uu dhab yahay iyo in kale. markaas ayaa inta ay fiirisay saaxiibtay Saarina waxay ku tiri, soo bax aan jawiga bedelanay. waxayna afartoodiiba ay raaceen gaari taksi ah. tagsigii ayaa la soo wada raacay iyadoo weli loo sarqaansan yahay, waxaana la yimid goob sargaalkii uu ku sii talagalay in habeenkii inta ka dhiman waqtiga lagu wada qaato. Shula Cohen iyo Saarina waxay ka soo baxeen gurigii uu geeyay sargaalkii dowladda Lubnaan u shaqaynayay xilli waqtiga uu ahaa xilli dambe, waxaana ay ku ballameen in ay kulmaan maalinta berrito ah. Shula Cohen ayaa markaasi Saarina xaafadeedii geysay, kadibna waxaa toosay u aaday gurigii George Malquu, kaasi oo isagana waqtigaasi soo jeeday. waxa uu sugayay Shulamed Cohen iyo akhbaarta ay u keeni doonto. Shula ayaa markii George u tagtay u sheegtay wixii dhacay xalay ilaa maalinta berrito ay ballansan yihiin sargaalka. kadibna waxay bilaabeen labadooda inay degaan qorshihii tiraha badnaa ee Yahuudda loogu daabuli lahaa gudaha dhulka Falastiiniyiinta. George ayaa u sheegay Shula Cohen in tiro badan oo Yahuuda kuwaasi horey ugu noolaa waddanka Suuriya ay soo gaareen magaalada Beirut, isagoo intaasi u raaciyay inay diyaar u yihiin u safridda waddanka Falastiin, isla markaana ay diyaar u yihiin doomihii iyo maraakiibtii qaadi lahaa. sidoo kalena markii hawsha diyaarinta ay dhammeeyaan uu safarka galbin doono Maxamed Saciid Al Cabdullah. Shula Cohen ayaa markaasi George Malquu waxay u sheegtay in dhowr jeer ay weydiin rabtay balse ay ilowda, taasi oo ah in Maxamed Saciidka inta badan iyada aadka u gaadgaadayay haddii uu yahay shakhsi muhiim u ah inay soo xirigeliso oo shabakada ay ku soo darto iyo haddii kale. waxaana kadib uu u sheegay George Malquu in xaqiiqdu ay tahay in Maxamed Saciid uu ka mid yahay sirdoonkooda, isla markaana howlwadeennada kuwooda loogu kalsoonida badan yahay uu yahay. waxaa kaloo u raaciyay in shaqadiisa uu daacad u yahay, waayo isagu wuxuu ka soo jeedaa deegaanka Al-Khiyaam, taasi oo ku taala meel u dhow xuduudda Israa'iil uu la leeyahay Lubnaan. haatanna waxa uu ku sugan yahay magaalada Tel Aviv. waxaa sidoo kale uu sheegay inuu soo laaban doono maalinta berrito duhurkii, waana shakhsiga ay sirdoonka ay aad ugu kalsoon yihiin Maxamed. Shula Cohen oo dhoolla cadaynaysa ayaa markaasi ugu jawaabtay George, haddiiba ay sidaasi ay tahay waa qasab inaan Maxamed Saciid shabaqayga aan ku soo ridaa si uu weligiisba daacad noogu sii aado. maalmaha soo socdana kulan ayaa lan qaadan doona, aniga ayaana ka shaqaynaya. Shulamed Cohen ka hor inta aysan ka tagin George Malquu, waxa iyada iyo George ay degeen qorshihii lagu tahriibin lahaa Yahuudda la diyaariyay, iyada oo George Malquu u sheegay Shula Cohen in berri uu la kulansiin doono mid ka mid ah ragga howlwadeennadooda, sidoo kalena ah jaajuus u adeega wakaaladda, kaasi oo lagu magacaabo Yusuf Kobi, sidoo kalena ah shakhsi Lubnaaniis isla markaana mas'uul ka ah diyaarinta doomaha iyo maraakiibta tahriibiyaasha oo dadka la doonayo in lagu sii qaado. sidaasina waxaa intaasi u sii raaciyay in naagtiisa aan Mari saaxiibkeed oo lagu magacaabo Albert, isaguna uu qorshaha qayb ka yahay, laguna soo dari doono shabakadaasi oo qayb uu ka noqon doono lana shaqaysa hay-adda sirdoonka ee Mossad. qorshaha tirada badan ee Yahuudda loogu tahriibinayo gudaha dhulka Falastiiniyiinta waqtigaasi wuxuu ahaa mid dhib badan, aadna u adag, waayo waa markii ugu horreysay oo cadad Yahuud intaasi la eg inta markab lagu daabulo dhinaca badda laga tahriibinayo. waana markii ugu horreysay oo ay Shula Cohen ay ka qayb qaadanayso howlgalka sirdoon ee Yahuudda. ka hor inta aysan Shulamed Cohen shabakadani ku soo biirin misna aysan noqon gacan yaraha qaaska ee George Malquu, howlgallada lagu tahriibinayo Yahuudda oo loogu daabulayo gudaha dhulka Falastiiniyiinta waxay Israa'iil
xilli ahayd mid aad u yar iyadoo maxamed saciid uu u tahriibin jiray markay ugu badato 2 ilaa 3 qof oo keliya isaga oo marsiin jiray dhanka xuduudda bariga ee isku xidha Lubnaan iyo Falastiin. howlgalka lagu tahriibinaya shakhsiyaadkan yahuudda ah waxaa mas-uuliyadeeda lahaa maxamed saciid, waxaana maxamed saciid uu ahaa dal aqoon si fiican u yaqaana wadooyinka isku xidha labada dal isaga oo cadowga yahuudda howlgalladaani u fulinayo kagana qaadan jira lacag aad u tiro badan. balse markii shabakada ay kusoo biirtay Shule Cohen islamarkaana isla howlgaleen iyada iyo George Mulquu waxaa dhacday sare u kac howlgalkii tahriibinta. weliba howlgalkaasi bog cusub ayaa u furmay maadaama laga tallaabay in la tahriibiyo 2 ama 3 qof loona dalacay tahriibinta dad aad u tiro badan oo yahuudiyiin ah. qorshahaasi yahuudda waxaa ka mid ahaa sidaan horey usoo sheegnay in lagu booriyey yahuudda sida teelteelka ugu nool wadamada carbeed in dhulkooda uu yahay Falastiin, halkaasina lagu beerayo islamarkaana ay u tahriibaan. dowladna loogu dhisi doono sidaasi awgeed Shule Cohen oo hawshaani si weyn ugu xilsaarnay saameyn weynna ayay ku yeelatay iyada oo markii howlgalka ay kusoo biirtay uu sare u kacay tirada yahuudda ee dhulka Falastiiniyiinta loo tahriibin jiray. Shule Cohen waxay ahayd mid had iyo jeer ka fakartay sidii hawsha loo xilsaaray ee guul muhiim ugu hogaamin lahayd islamarkaana ay u iibkeeni lahayd. sidaasi awgeed waxaa qasab ku ahayd kahor inta aysan la kulmin yahuudda jaajuusiintooda, gaar ahaana jaajuuska yahuudiga ah ee Yusuf Kobi iyo wiilkii maafiyada ahaa ee howlaha doomaha u xilsaarnaa inay meel uga soo jeesato sarkaalkii loo xilsaaray islamarkaana ay mashquuliso. muddada uu howlgalkaasi u socdo ayaa la doonaya inay biisa ama mashquul ay ka dhigto. sidaasi awgeed waxay ahayd habeenkii xigay oo ahayd habeenkii lagu ballansanaa tahriibinta yahuudda. sarkaalkii kale ayay u ballamisay mid ka mid ah gabdhihii quruxda badnaa ee ku sugnaa xaafadda yahuudda ee magaalada Bayruud ay ka deganaayeen ee Waadi Abu Jamiil. afartoodiina qorshuhu waxuu ahaa in sarkaalka lagu indhasarcaadiyo quruxda gabadhaasi islamarkaana laga mashquuliyo howlihiisa muddada ee howlgalka shabakada ay ku jirto. Shulamit Cohen habeenkaasi waxay u diyaarisay sarkaalka mid ka mid ah gabdhihii ugu quruxda badnaa ee Waadi Abu Jamiil. gabadhaas oo lagu magacaabayay Fartuuniya waxay ka mid ahayd gabdhaha farikotiriska ee bilicdooda magaalada oo dhan ifin jiray, iyada oo lahayd indho baluuga oo qurux badan, timo dahabi ah iyo sidoo kale dhismo jireed oo soo jiidasho leh. kahor inta aysan Shule Cohen diyaarin Fartuuniya waxay wajahday caqabad, waayo Fartuuniya ma aysan ahayn gabar madax bannaan oo waxaa qabay nin hantiilo ah, balse iyadu waxay ahayd gabar dhalinyaro ah islamarkaana damac badan. waxay ogeed Shulamit iyo Fartuuniya dhanka lacagta inay ka dabacsan tahay, lacagtan ay aad u jeceshahay. sidoo kale Shule Cohen waxay ogeed in Fartuuniya ay horay niman aad u tiro badan lacag aawey ay waqti ula qaadatay, weliba iyada oo la qaba. sidee loo soo xirigeliyey? halka hay noo joogto qaybta xigta ee macluumaadka ku saabsan Shulamit Cohen ama Shule Cohen. waxaan u mahad celinayaa saaxiibkii Cabdiraxmaan Xasan Anteeno oo sheekadaani tarjumay. qaybta xigta intaan ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi